dagaal sokeeyo oo aad u qarar oo Itoobiya ka bilowday gobol walba oo kamid ah Itoobiya oo holcaya oromadii oo soo bandhigtay ciidankii ay ku dagaal gali lahayd Tigreega iyo oromadii oo xulufo cusub samaystay maxaaradii oo yar iyo weyn dagaalkii wada galisay iyo dagaalkii buuraleyda ee ugu cuslaa oo maanta dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku daawad doontaan saaxiibayaal halkani waa Alfa Media Group haddii aad channel ugu cusub tahay subscribe saaro gambaleelka furo si aad uga mid noqoto saaxiibaha ugu horeeya ee barnaamijyadeena daawada barnaamijka la garay si aad uga qayb qaadato barnaamijka aynu ku horeynay oromadii oo soo bandhigtay ciidankii ay ku dagaal gali lahayd tababar ay u soo xireen ciidankii ugu cuslaa oo ay ugu tala galeen inay kula dagaalamaan Amxaarada iyo Abiy Ahmed waxa sidii uu u bilowday dagaalka ka socda Itoobiya dagaal ka socday gobolada Oromada isla markaasina ay ku dagaalamayeen jamhadda xoreynta Oromada iyo dawladda federaalka Itoobiya ciidamada liyu booliska Oromada oo isgarabsanaya dagaalku waxa uu u socday si teltel ah ama goosgoos ah laakiin hadda Oromadii waxa ay u diyaar garoobeen in ay dagaal toos ah oo xoog la ay galaan lana galaan dawladda federaalka Itoobiya iyo Amxaarada haddaba muuqaalkani waxa uu ku saabsan yahay tababarkii loo soo xiray ciidanka Oromada markaan Oromadu banaanka ayay soo dhigeen si buuxda ayayna dagaalka ugu diyaar garoobeen ayaa la leeyahay meel walba mudaharaadyo ayay ku qabteen guud ahaan dalka Itoobiya mudaharaadyo culus ayaa ka socda oo ay wadaan Oromadu kuwaasi oo ay uga soo horjeedaan Abiy Ahmed iyo Amxaarada kacdoonka Oromada waxa dabka ku sii shidaya siyaasiyiinta Jawaar Maxamed Baqale Garba iyo xubno kale oo kamid ah mucaaradka Oromada ee Abiy Ahmed u xiran ayay maxkamaddu ka diiday codsi ay u gudbisteen oo ahaa in xanibaadda laga qaado akoonadooda ay bangiyada ku leeyihiin iyo hanti ay lahaayeen oo ay dawladdu la wareegtay maxaabiistan Oromada ah ayaa horay maxkamadda uga codsaday in xanibaadda laga qaado waxa ayna ka dayriyeen xaaladda nololeed ee xaafadahooda maadaama ay ayagu hantidii dhameed lagala wareegay wixii bangiga ugu jirana laga xanibay sidaasna ay xaaladooda uga deerayaan xaafadahooda ama qoysaskooda arintan ayaa dabka ku sii shidaysa xaaladda taagan Oromadii oo awal banaan baxaysay ciidamadeedii ay ku dagaal gali lahayd soo diyaarsatay oo tababarkii u soo xirtay haddana dagaal diyaar u ah in ay la dagaalamaan dawladda iyo Amxaarada waxa arinta dabka ku sii shidaya muuqaal baraha bulshada la wareejinayo oo muujinaya dad Oromo ah oo ay silcinayaan ciidanka federaalka Itoobiya kuwaasi oo mudaharaad sameynayay muuqaalkaasi waan inii soo bandhigi lahayn laakiin suurtagal ma ahan sabab sharci awgood wali mudaharaadyadii Oromada waa ay sii soconayaan balse aynu u ogaano waxa socda aynu muuqaalkan yar wada daawano dhanka kale Oromadii iyo Tigreegi ayaa u midoobay dagaalka Itoobiya ee lagu la jiro dawladda federaalka Itoobiya ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed iyo Amxaarada war-saxaafadeed ka soo baxay hogaanka sare ee TPLF ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin dhibaatada lagu hayo Oromada isla markaasina ay cadeyn u tahay in lagu soo duulay qoomiyadaha Oromada iyo Tigreega sidoo kale waxa ay xuseen in dhibaato ba'an lagu hayo oo la xiray siyaasiyiintii mucaaradka ee Oromada oo hadda dawladda u xiran oo ay sidoo kale mudaharaadyadii maantay ee Oromada ayay ku cadeeyeen in ay garab taagan yihiin Tigreega haddaba daawade inta aanan u gudagelin wararka kale sidee u aragtaa midowga iyo isbahaysiga isxulufaysiga Tigreega iyo Oromada dhanka kale dawladda federaalka Itoobiya ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed iyo Amxaarada halkee ayuu ku dambeey doonaa ayaad isleedahay iyo qoomiyadihii kale ee dalka Itoobiya oo iyaguna nagta isku haya oo isbaabi'inaya haddaba maxaad u maleynaysaa in uu soo kordhi karo midowga Tigreega iyo Oromada aragtidaada qaybta commentiga nagula wadaag saaxiibayaal wali waxa sii soconaya dagaaladii Itoobiya qabiilkii kunsaha ee tirada yaraa oo baabah ka dhigay qoomiyadihii kale ee la deganay waa ay qaxiyeen
buushashkii ama meelihii ay deganaayeen ayay gubeen oo dab qabadsiinayaan wax ay cafinayaan ma laha waxa la leeyahay xaalado bini'aadanimo oo aad u daran ayaa halkaasi laga soo sheegaya oo ka jira ayaa la leeyahay dhanka kalena amxaaradii dagaalkii Itoobiya ee gobolka Tigray ka socday uma aysan kala harin yar iyo weyn dagaalka ayay galiyeen dagaalkiina waxa uu isku bedelay dagaal qowmiyadeed amxaaradu TV-gooda waxa ay ku soo bandhigeen ardadii amxaarada oo sheegay in ay dagaalka ku biirayaan taasi oo ka dhigan cid dagaalka uga hartay in aysan jirin mar haddii ardaydii la dagaal gelinayo oo gabdhihii la dagaal gelinayo dhalinyarada la soo bandhigay ee sheegay in ay dagaalka ka qayb qaadanayaan ee TV-ga ka hadlay amxaarada waxaa ka mid ah gabdho dhanka kalena Tigreegu yar iyo weyn rag iyo dumar dagaalkii ayaa la wada galay oo qoryihii ayaa la qaatay baaqi madaxweynaha gobolka Tigreega ay ahaa in ay qoryaha dadku qaataan oo ay dagaalka galaan isla markaasina ugaarsadaan oo ay baabi'iyaan kuwa ku soo duulay ee ugu yeeray amxaarada iyo Eritreanka iyo dawladda federaalka Itoobiya ama ciidanka militariga ee Itoobiya Tigreegu waxa ay soo bandhigeen dadkoodii oo hub ka qaatay waxa kamid ah dad aad u ah oo xitaa oo isbedelay qaab dhismeedka jirkoodu maamadan hadda inay muuqata qiyaas ahaan ma ka yara 9 sano ma ka yara qorigeeda ay hore u qaadatay taasina waxa ay daliil u tahay in Tigreegu cid u hartay aysan jirin oo ay dagaalka wada galayaan sida uu sheegay madaxweynaha Tigreegu sharafkeena aynu difaacana ayuu yiri isirsifeen ayaana lagu wada ayuu yiri dadkiisana waa u dhiirigeliyay qoryahana waxa uu sheegay inay horaba ugu qaybiyeen dadka waxa uu ugu baaqay inay la soo baxaan sidii ayaana dhacday oo dadkii qoryahoodii waa ay la soo baxeen dagaalka inay ka qayb qaataan ayayna diyaar u yihiin Tigreegi maantay waxa dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa inta dagaalku socday waxa la sheegay in duurka la isla galay oo buuraleyda la isku baabi'iyay mashaqadii maantay ugu weyneed in ay ka dhacday adigraad duleedkeeda oo la isku baaba'sho halkaas la isku farasaaray qasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac magaalooyinkii waa la iskala baxay oo duurka ayaa la isla galay hadda ayuu dagaalku koow yahay qoomiyada horlena waa ay ku soo biireen dagaalka xulufaysina waa la samaystay Tigreegi iyo Oromadu hadii mar ay xulufo ay noqdeen xulufaysi ay samaysteen qoomiyadihii kalena ay isku rifayaan goboladooda xaaladda Itoobiya hadda waxa ay u xub siibatay dagaal sokeeye si guud ayaa warbaahintu u soo qaadanaysa oo loo sheegaya oo lagu dhawaaqaya dagaal sokeeye ayaa Itoobiya ka socda qaramada midoobana fadhi ayay ka yeesheen arintan sidii loo xakameyn lahaa oo dhinacyada dagaalamaya loo wada hadashii lahaa oo miiska wada hadalka loo keeni lahaa taasina waxa ay u muuqataa mid aan suurtagelaynin wax walbaahi waxa ay ku haboonaayeen ayaa la leeyahay intii uusan dagaal ku bilaaban hadda bahashu waa ay wada gaartay wadankii oo dhan ayaa isla gubanaya dagaal sokeeye ayaa ka bilowday Itoobiya marka suurtagal ma ahan ayaa la yiri marka xilligan la joogo in la furo wada hadal ama miiska wada hadalka la soo fariisiyo dhinacyada dagaalamaya markii hore xaalku intaani waa uu ka dhawaa oo waa uu ka fududaa waxaana la lahay hala dhexdhexaadiyo ismaamulka Tigreega iyo federaalka Itoobiya laakiin hadda sidii hore ma ahan oo wadanka dhan ayaa isla gubanaya dhinac ama meel laga bilaabo wada hadal ma jiro dagaal qowmiyadeed ayaa bilowday oo sokeeye waxaan filayaa inaan Soomaalida looga sheekeynaynin dagaal sokeeye dhibaatada uu leeyahay si lagu heshiiyana sida ay u adag tahay Soomaalidu 10 ayay ka barteen 30 sano ee la soo dhaafay oo ilaa hadda la isku keeni la yahay oo la sii kala irdhoobayo marka Soomaaliya oo hal qowmiyad ah ayaa la isku keeni waayay muddo 30 sano ah muddo inta leeg ayay qaadan kartaa ayay kula tahay in dagaalka Itoobiya ah intaasoo qowmiyadood in mataqaana la isku keeno oo la heshiisiyo oo miiska wada halka soo wada fariistaan oo ay xal waara wada gaalaan taasi waxaan filayaa in ay adag tahay in aysan suurtagelaynin waa ay muuqataa ciidankii federaalka Itoobiya ay u dhaxeeyay dhinacyada ama qoomiyadaha dagaalka ayuu ku milmay oo waa ka dagaalamaya waa la kala soocmay inta hadda federaalka ku jirtana waa wax ay amxaara ku shaqaysanayso ayaa la leeyahay warka xiga ayaa inoo balam ah saaxiibayaal